assalaamu calaykum. Waxaan ahay qaasim maxamed. Waxaan halkan ku soo gudbiyaa mowduucyo la xiriira horumarinta nafta oo aan ugu horrayn ku dhiirigeliyo naftayda iyo qof kasta oo iigu xiran. Haddii ay tahay markii kuugu horraysay uu ku soo gaaray muuqaalkayga, waxaan kugu soo dhowaynayaa channelkeena Hagaha Nafta. Haddii aad horay noola joogtayna, farxad ayay inoo tahay la jirkaaga. Mahadsanid. Mar kale ku soo dhowaada muuqaalkeena maanta. dib u dhigashada procrastination waa caqabad weyn oo dadka intooda badan ay la kulmaan marka ay ku fikiraan inay qabtaan howlo muhiim u ah ama inay ka dhaqaaqaan darajada iyo heerka ay taagan yihiin, balse caadadan dib u dhigashada ayaa ku noqota darbi ku horgudban iyaga iyo waxa ay doonayaan. Balse nasiib wanaag waa caado laga takhallusi karo haddii la fahmo sababaha keena iyo sida looga gudbi karo. Waa muhiim in la xasuusto in waqti luminta iyo dib u dhigashada aysan lahayn wax faa'iido ah, balse ay dib u dhigaan horumarka qofka. Haddaba, si aan aga takhallusno caadada dib u dhigashada oo ah caado curyaamisa dadka hanka leh, waa inaan raacnaa 6 qodob. Qodobka koowaad, waqtigaaga waa nimco ee ha iska lumin. Waqtigu waa mid ka mid ah nimcooyinka ugu waaweyn ee nala weydiin doono maalinta qiyaamaha, halka aan ku bixinnay iyo waxa aan ku qabannay intaba. Haddii aad rabto inaad guulaysato, waa inaad si caqli leh u maaraysaa waqtigaaga. Ha u sugin berri ama waqti kale. Waxaad qaban karta maanta. Hadda samee oo ku dhiiro tallaabada koowaad. Dunidan ma jiro qof ka waqti badan qof kale, oo gaal iyo muslimba waxay ka wada siman yihiin 24 saac ee maalintii. Balse waxa aan ku kala hormarnay ayaa ah sida uu qof kasta u maaraysta waqtigiisa. Waxaana xaqiiqo ah in mar walba oo aad dib u dhigato, howl qabashadeedu ay hadda tahay, sidoo kale waxaa dib u dhacaya horumarkii ay keeni lahayd hawshaas. Waana sababta aan u rabno inaan gebi ahaanba nolosheena ka saarno caadadan dib u dhigashada sabab la'aanta ah. Qodobka labaad, bilowga waa guusha koowaad. Waxaad doonaysaa inaad qabato howl muhiim kuu ah oo aad aaminsan tahay in wax badan ay ka tari doonto horumarkaaga, laakiin uma diyaarsanid qabashadeeda si 100% ah. Ha walwalin oo bilow hawshaas qabashadeeda, waayo kuma qasbanid in isla maanta aad wada qabato, balse waxaad ku qasban tahay in aad bilowdo marka hore. Bilowgaaga inuu qurux badnaado muhiim ma ahan, oo shay kasta waxa ugu adag waa bilaabashadiisa. Waxaana tusaale kugu filan hooyadu marka ay owlaad caloosheeda ku beermayaan, isbuucyada iyo bilaha ugu horreeya aad ayay u rafaadaysaa inta ay owlaaddu ka dhammaystirmayaan abuurkooda. Sidoo kale diyaaradda inta aysan hawada ugu duulin si degganaan oo raaxo leh, waxaa ka horeeya inta aysan duulin in bilowgeeda aad looga taxadiro. Suumanka loo xiro rakaabka, dhaqdhaqaaqa laga dhex joojiyo gudaheeda ilaa ay hawada uga gasho si quman. Sidaasi si la mid ah, howl kasta qabashadeeda waxa ugu adag oo dadka intooda badanna ku kalifa inay dib u dhigtaan waa bilowga hore. Waxa ugu culus waa tilaabta koowaad, balse safar kasta oo dheer waxa uu ka bilowdaa hal tallaabo. Qodobka saddexaad, naftaada ha ku xirin dareenkeeda. Mar kasta uu qofku damco qabashada howl, noocee doonto ha ahaatee, waxaa qasab ah inuu gudaha iskala hadlo qofkaas, oo ay gudihiisa ku dagaalamaan 2 dareen. Mid dhahaya, hawshan hadda kuma habboona qabashadeeda, mar kale ayaad qaban kartaa oo waqti iyo maalmo badan ayaad haysataa, ee hadda ha isku mashquulin. Sidoo kale dareen kale oo dhahaya, samee oo bilow hawshan, xitaa in yar ka bilow, waayo muhiim ayay kuu tahay, waana lagama maarmaan qabashadeeda. Bal u fiirsa 2 dareen, sida togan iyo sida taban ay u kala hadlayaan. Midkee isleedahay waa guulaystaha mar walba? Adiga daawanaya muuqaalkan, midkee ayaad isleedahay waa guulaystaha mar walba? Dabcan waa dareenno aan si maalinla ah u dareenno. Inta badanna waxaa guulaysta midka taban ee negatifka ah, kaasoo nagu dhiirigeliya dib u dhigashada inay caadi tahay, isagoo noo samaynayo sababo aan dib ugu dhigan karno hawsheenna. Balse nasiib wanaag, waxaa jira dad badan oo ka guulaysta dareenkaas taban, oo iyagoo aad u dhibsanaya qabsada oo bilaaba hawshooda. Ogowna waxay naftu la qabsataa mar walba waddada loo jeexo, oo iyadu dooq ma lahan, keliya waxay wax ku qaadataa ficilka iyo tallaabaqaadka qofka. Waxaad ogaataa dareennada aan kor ku soo xusnay inuu dareemo qof kasta, dareemana mar kasta uu dhaqaaq isdhaho
hadday ahaan lahayd dukashada salaada subax oo aan isdhihi karo waa midda ugu culus uu dareemo qofka dhallinyarada ah naftiisana ay kala dagaasho inuu u kaco salaada subax balse qofku uu leeyahay aqbaliddeeda inuu firaashka ka kaco misena aada salaada iyo in uu iska sii wato hurdadiisa kadibna uu shallaayo marka uu soo tooso xilli uu wakhtigii salaada caddaaday sidaasi darteed nasteexada aan ku siinaya ayaa ah in aadan naftaada marnaba ku xirin dareenkeeda oo aad noqoto qof ka adag dareenkiisa yaqaanana muhiimadda ay ugu fadhido inuu tallaabooyin u qaado dhanka horumarkiisa qodobka afaraad ka fikir dhibaatada dib u dhigashadu kuu keenayso mar kasta oo aad wax dib u dhigato waxaa sii kordhaya walwalka iyo culayska aad dareemayso maalinta dambena waxay noqon doontaa mid ka sii dhib badan maanta haddaba maxaad u dooranaysaa inaad mustaqbalkaaga culays geliso oo aad dib u dhigato howlo adigaba aad aaminsan tahay inay muhiim u yihiin naftaada oo ma og tahay in dib u dhigashadu tahay khasaarayaha koowaad ee cimrigeenna qodobka shanaad u qaybi howlahaaga qaybo yaryar haddii aad dareento in hawsha ay badan tahay ha ka cabsan ee u kala qaybso qaybo yaryar oo si tartiib tartiib ah aad u qabato tusaale ahaan haddii aad rabto inaad buug akhriso buugguna uu yahay mid weyn balse aad jeclaysatay inaad akhriso si aad uga faa'iidaysato macluumaadka ku qoran ha isku dayin in aad hal maalin ku wada akhriso balse taas beddelkeeda waxaad ka bilaabi kartaa inaad akhriso 5 ilaa 10 bog maalin kasta sababtuna waxay tahay wax kasta oo aad bilaabayso gaar ahaan howlaha cusub ha ku qasbin nafta in ay hal mar wada qabato inta ay la qabsanayso balse taas beddelkeeda u oggolow inay ka qabato inta ay kari karto tusaale kale waxaad doonaysaa in maalin walba aad ka akhriso qur'aanka hal juz balse naftaada aad ka dareemayso caajis waxaan ku leeyahay ha qasbin nafta ee soo qaado kitaabka kadibna ka akhri inta aad awooddo oo ogow waxaad gaari doontaa waqti ay naftaada akhrisan doonto juz iyo wax ka badan balse waa goormee waa marka ay ka soo gudubto caadadan dib u dhigashada misena ay la qabsato qabashada howlooyinka qodobka 6aad ahna qodobka ugu dambeeya alla weydiiso fududayn dib u dhigashada waxaa lagaga hortegi karaa marka la helo dhiirigelin gudaha iyo mid dibadda ah qofka muslimka ah waa inuu alla weydiistaa inuu u fududeeyo howlihiisa xabiibkeennii muxamedna sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi qofka ilaahay xaggiisa u weydiista fududayn ilaahay wuu u fududeeyaa haddii aad doonayso in mar walba naftaada aad hoggaanka u qabato kuna socodsiiso dariiqa aad la rabto waxaad u kaalmaysataa rabbigii iyada abuuray isaga ayaana kuu saqiri doono waxa aad ku haminayso alla idinkiisa ugu dambayn hadda ayaa ah wakhtigaaga rasmiga ah ee aad ku xisaabtami karto ha sugin berri maxaa yeele ma ogid wax berri dhici doona bilow hadda oo si tartiib ah u dhaqaaq allana tala saaro guushaada iyo horumarkaagana waxay ku jiraan dadaalkaaga iyo in aad ka takhallusto caadadan curyaamisa dadka hanka leh hagaag waxaan rajaynayaa in muuqaalkan uu wax uun ku kordhiyo naftaada aadna ku dabaqi doonto naftaada inta aan goordhow ku wada kulmi doona muuqaalka xigana waxaan ku leeyahay aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan mahadsanid